tobanka tilaabo ee uur qaadista ka hor. Marka ugu horeysa go'aanso korriimada qoyska iyo in ilmo cusub ku soo biiro iyo ku raaxaysiga wadada ka hor muuqata ee ubad helida. Markaan kadib samey tilaabooyinkan soo socda. Ka hor inta aysan isu diyaarin haweeneydu uur qaadista waa inay samaysataa jadwal schedule ama booqasho takhtarkeeda haweenka si ay uga soo qaadato talo ku habboon wareegeeda caadada iyo qaabka uu shaqeeyo jirkeeda. Waa muhiim xilliga ay sameynayso sida gabadhu inay ahaato marka ugu horeysa ay dhiig caadada hesho. Haddii ay jireen xilliyadii hore xanuuno ay dareemi jirtay gabadhu sida xanuunada qanjirka thyroidka waa inay u sheegtaa takhtarka si uu u siiyo talo ku habboon uur qaadista. Raadi xaaladihii caafimaad ee qoyskaaga la soo gudboonaaday. La hadal waalidkaaga iyo qoyskaaga si aad uga diiwaan geliso xanuuno ku dhacay oo la xiriira hidde-side ama xanuuno kale oo khatar ku keeni kara uurku jiraha si aad uga digtoonaato wax waliba oo aad sii ogaan karto. La kulan takhtarka ilkaha si aad u hubiso caafimaad qabka afka iyo ilkaha, waayo xilliga uurka ay leedahay haweeneydu waa xilliga ugu fudud ay ugu nugushahay cudurrada ciridka iyo ilkaha isbedelada hormoonada ku yimaada aawadeed. Markaan waxa aad heli doontaa hubin guud xanuunada ilkaha iyo ciridka si aadan ugu baahan marka aad uurka qaado dawooyinka xanuun baabi'iyaha ah oo xanuunka ilkaha lagu yareeyo oo caqabad ku noqon kara uurka cusub. Talaalka uur qaadista ka hor waa arrin kale oo muhiim ah inaad istallaasho inta aadan helidda uurka u diyaar garoobin. Waxa ay fududeyn u tahay arrintan helidda ubad caafimaad qaba iyo ka hortagga xanuunada qaar soo wajihi kara hooyada xilliga ay uurka leedahay. Talaalka uurka ka hor la qaato waxaa lagu magacaabaa MMR vaccine oo loo soo gaabiyey measles oo jadeecada ah, mumps oo fayras khatar ah iyo rubella oo ah fayras u calaamado eg jadeecada. Haddii aad isticmaasho dawooyinka caadada saxa waa inaad iska joojisaa bil ka hor inta aadan u diyaar garoobin raadinta uurka si loo helo wareegga caadada oo si sax ah u yimaada ama looga hortago qalad ka dhasha xilliga bacriminta ugxaanta iyo shahwada. Si xaaskaaga saygaaga raashinka shahwada tayeeya ee nafaqada leh isla markaana ha sameeyo jirdhis fudud si la mid ah ha joojiyo dhammaan waxyaabaha uu isticmaalo sida sigaarka iyo dawooyinka. Qaado dawooyinka loo qaato uur isu diyaarinta oo hubi inaad ku sugan tahay xaaladda ugu wanaagsan ee jir u diyaar garoobay marxaladan oo kale. Dawooyinka aad u baahan tahay xilliga uur raadinta waxay isugu jiraan folic acid, vitamins iyo macdan. Waxaadna ka heli kartaa goob waliba oo dhakhtar fariisto. Wax ka bedelidda noloshii hore waa muhiim sababtoo ah waxa loo baahan yahay isticmaalka raashinka qolofta leh ee jirka waqtiga badan ku jiri kara iyo sida oo kale qudaarta iyo wax waliba oo borotiinku ku badan yahay sida kalluunka, ukunta, kuwaas oo faa'iido u leh soo saarista taran awood leh isla markaana bacrimi kara. Waxa aad qaadataan fasax iyo booqasho meelaha aadka u qurxoon si aad niyadda u soo siisaan farxad dheeri ah una heshaan hormoono isu dheelitiran. Sida dhabta ah helista caruur waa juhdiga ugu weyn ee uu qoys bixin karo. Marka waa muhiim in aad xisaabisaan, go'aansataan halka xilliga iyo sida ay u ekaanayso nolosha bilaha ay gabadhu uurka sidayso. Si gaar ah 3 bil ee ugu horeysa maadaama bilaha ay dhibta ugu badan marayso gabadha uurka leh oo ay qayb ka tahay xilliga walaaca. Qormadan iyo kuwa kale oo la xiriira caafimaad qabka qoyska iyo ciladaha soo wajaha hooyada uurka leh iyo xanaanada ay u baahan tahay. Iyo marka ay dhasho kadib 6 bil ee ugu horeysa nafaqada ay u baahan tahay carruurta waxaad ka daalacan kartaa buugga la magac baxay qoys deeqe oo qoray Dr. Shariif Xidig. Waa mahadsantiin.